الحمد لله maanta oo bishu ay tahay 17 bisha January sanadka 2016 waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasto ay joogto iyo ummadda reer Puntland iyo ummadda gobolka Bari shacab weynaha gobolka Bari oo aan si gaar ah u salaamayo waxa wax Ilaahay subhanahu wa ta'ala lagu mahadiyaa wanaaga iyo barwaaqada iyo midnimada maanta ay ka muuqata dadyowga Soomaaliyeed meeshay doonaan ha joogeen iyo in maantay la go'aansaday shacabka Soomaaliyeed deegaankay doonaan ha ku noolaadeen inay taladu ay ka go'do deegaan walba dadka ku dhaqan in maanta lagala tashado deegaan kasta dadka ku nool oo Allah subhanahu wa ta'ala uu ku abuuray arintaas waxaan oran karaa waa arin la sugayay oo dhammaan shacabka Soomaaliyeed maalin maalmaha kamida inay timaado ay sugayeen waxaan halkan sidoo kale aan baaq uga dirayaa mas'uuliyiinta heer federaal iyo maamul goboleedada shirku uga socdo magaalada Kismaayo ee maamulka Jubbaland in ay u turaan ummadooda in ay u tanaasulaan in ay midnimada Soomaaliyeed ay ilaaliyaan waxa danta ummadda uu ugu jirana ay ku soo ururiyaan shirarkooda uma baahna in la qeexo waxa ay cadaaladu ku jirtaa danta ummadda Soomaaliyeed ay ku jirtaa waxa uu yahay in awood qaybsiga iyo khayraad qaybsiga iyo wax wadaagidaba ay ku salaysnaato deegaan inay ku salaysnaato taasa waxay noqon kartaa mid deeqi karta ummad kasta isla markaana ummaduhu ay iimaansan karaan deegaanadii Allah subhanahu wa ta'ala uu ku abuuray baaqaas waxaan u jeedinayaa dhammaan mas'uuliyiinta halka uu shirka uga socdo bulshooyinka caalamka iyo dawladaha dariska iyo danayaasha Soomaaliyana waan u hambalyeeynaya in ay culays badan ay ku saaraan sidii maslaxadda Soomaaliyeed iyo danta Soomaaliyeed meesha ay ku jirto mas'uuliyiintaas ay u kaxayn lahaayeen waxaan rabaa inaan halkan ka tilmaamo Puntland waxa la asaasay 1998 waxa isu yimid oo asaasay ummad ka soo jeeday deegaanka Puntland waxaana lagu asaasay deegaanada Puntland lafdhabar waxa uu ahaa shaqooyintii ka soo jeeday gobolka Bari dhaqaalaha ugu badan iyaga ku bixiyay ama waxaan oran karaa dhammaan dhaqaalihii shirarka ku baxay iyaga bixiyay dadkii lafdhabarta uu ahaa oo waqtigooda u horay oo saxadooda u horayna waxay ahaayeen simadii iyo siyaasiyiintii iyo waxgaradkii iyo ganacsatadii ka soo jeeday iyo gabdhihii ka soo jeeday gobolka ugu weyn Soomaaliya ee gobolka Bari xilliga isaga ah dadku waxa ay ku jireen jahwareer siyaasadeed waxa ay ku jireen kala daadsanaan ma jirin maamul dhameystiran oo deegaanada iyo geyiga isaga ah ka jiray waxa la isku afkartay oo la isku raacay in la sameeyo maamul dadka u dhaxeeya xilliga waxa la dhisay maamulkii Puntland iyadoo lagu asaasay sida lagu qoray ahd qarameedkii markaa jiray 5 gobol iyo degmo marka dib loogu noqdo ma ahayn 5 gobol iyo degmo waxa ay ka koobnaayeen wax dhameystiran goboladii halka isugu yimid waxa ka jiray gobolka Bari iyo gobolka Nugaal iyo gobolka Sool oo laga yaabo markaa in tuulooyin kamid ah ay ka maqnaayeen gobolka Sanaagna ma uusan dhameystirnayn oo waxa markaa joogay degmada Baran iyo degmada Laasqoray gobolka Mudugna waxa joogay degmada Jariiban iyo degmada Goldogob iyo Gaalkacyo qayb kamid ah iyadoo markaa dadku ay tanaasul muujinayeen midnimo ay muujinayeen aan xisaabtan dhaba uusan jirin waxa la isku afgartay oo la isku raacay inaan la xisaabtamin xilliga kan laakiin xilliga ku haboon xisaabta in loo daayo qaabkaas marka loogu qoray 5 gobol iyo degmo waxaad moodaa marka tanaasulkii faraha badnaa ee dadyowgii ka soo jeeday gobolka Bari hadday yihiin siyaasiyiin iyo dhaqan iyo culimo iyo ganacsato iyo gabdhaba in ay deegaanada qaybtooda dadkii ka soo jeeday ay u qaateen inay waajib ku tahay ama inay xaq ugu leeyihiin tanaasulkaasi inuu ahaado mid jira mar walbana kora inuu ahaado arinta aad baan uga xunnahay
in maskaxda noocaasa iyo caqliyada noocaasa in lagu fakiro wax la aqbali karo ma maanta 2016 baynu mareynaa Soomaali oo dhan baa waxay ku xisaabtamaysaa deegaan iyo waxa loo yaqaano decentralization iyo maamulka in la daadajiyo oo tuulada uu ka yimaado ninka head tuulaha ah askariga rugta tuulada madaxda ka ah tuulada ka yimaado ninka wakiilka hay'adaha dawladda u ahna uu ka yimaado tuulada degmaduna saasi la mid ah gobolkana saasi la mid ah Puntland marka waxa ka dhaqan gashay gobolada qaybtood in maamulkii uu ku salaysnaado maamul deegaana sida gobolka Mudug gobolka Sool gobolka Karkaar oo dib laga sameeyay waxa ka dhaqan galay in laga dhaqan geliyo dadkii deegaanka ka soo jeeday in laga xulo gudoomiyihii gobolka in laga xulo gudoomiyihii degmada in laga xulo taliyihii qaybta in laga xulo dhammaan ku xigeenadoodii taliyaashii saldhigyada hay'adihii kala duwan ee dawladda saraakiishoodii iyo masiiroontooda in laga xulo gobolka isaga ah sidoo kale waxa ka dhaqan galay in dhaqaalaha gobolka ka soo baxa in dib loogu celiyo isla gobolka meesha gobolka bari uu weli taagan yahay maalintii Puntland la asaasay dhaqaalaha gobolka bari ka soo baxa xoogiisa waxa uu aadaa gobolada kale ee Puntland uu aadaa haday tahay mushahar shaqaale haday tahay mushahar ciidan iyo haday tahay horumarin gobolada kale gobolka bari waxa la oran karaa waa gobolka ugu dambeeya gobolada Puntland ugu horumarka yar la oran karo dhaqaalihii ka soo bixi jiray gobolka bari ama ka soo baxa waxaan halkan aan rabaa iyadana inaan ka tilmaamo gobolka bari waa gobolka Soomaaliya ugu weyn waxa uu qiyaastii ka kooban yahay markii dib loogu noqdo degmooyinkii dawladda siyaad barre ay ugu dhacday 6 degmo masaaxada gobolku waxa uu ka kooban yahay 64,000 oo kiiloomitir square ah dhinaca xeebta waxa uu gaaraa masaaxa ahaan 900 oo mitir marka Soomaaliya oo dhan ay tahay 3,025 kiiloomitir waxa uu noqonayaa gobolka bari 900 macnaheeduna uu yahay 3 meelood meel wax ku dhow dhaqaalaha Puntland ka soo baxa waxa lagu qiyaasaa 90% iyo dhowr inay ka soo baxaan gobolka bari saasoo tahay dhaqaalaha gobolka bari kaga noqda miisaaniyada Puntland gobolka bari waxa kaga noqda wax aan 5% gaarin halka waxa ka muuqanaya dulmi aad u fara badan iyo tacaddi aad u fara badan iyo in gobolka bari uu ku dulman yahay systemka iyo haykalka dawladnimo ee Puntland ka jira systemyadii kala dambeeyay ee Puntland soo marayna dulmiga dhamaantood waa uu jiray inkastoo uu maanta qaangaaray oo uu gaaray meeshii ugu sareysay ee dulmi uu gaaro haddaba bulshooyinka ku dhaqan gobolka bari oo qabaa'il aad u fara badan ka kooban lana oran karo qabaa'ilka Soomaaliyeed gobolada ku dhaqan waa gobolka ay ugu fara badan yihiin waxa aynu ku dhow yihiin ilaa 40 qabiil bay ku dhow yihiin deegaanada inta leeg oo masaaxada inta leeg wax soo saarka inta leeg waxa laga yaabaa laamiga marka laga leexdo wada la mari karo oo ah gravel road malaha tuulooyinka iyo degmooyinka waaweyn oo laamiga ka leexan malaha isbitaalo malaha goobo waxbarasho oo ku haboon malaha adeegii bulsho ay u baahneen looma awoodi kari waayeen hay'adaha looma diri kari waayeen hay'adaha dawladdu ma qaban kari waayeen laakiin mar walba waxa jirtay gacan bidixayn maamulka mar walba ka sameeyay Puntland uu ku hayay gobolka bari waxaad moodaa marka waxa soo dhibaato ah iyo waxa soo duruuf ah dadku inay ku saburayeen oo ay aaminsanaayeen inay iman doonto maalin cadaaladu ay sareyn doonto deegaan walbana waxa uu xaq u leeyahay uu yeelan doono dawladda federaalka markii ay ku meel gaarnimada ka baxday dadka aad bay ugu farxeen waxay aaminsanaayeen dulmi badan oo deegaano badan ka jira oo gobolka bari uu ka mid yahay
inuu zuuli doono la xisaabtan dhab ahna ay iman doonto dad kasta oo deegaankooda joogana iyaga wax laga weydiin doono ma dhicin arrintaas waxaa dhacday dulmigii ka jiray gobolka bari in uu u guuray si la mid ah dadkii ka soo jeeday deegaanada gobolka bari hadday tahay markii la qaybsanayay xildhibaanada federaalka waa lagu dulmiyey hadday tahay markii la qaybsanayay awoodaha kale ee dawladnimo waa lagu dulmiyey iyadoo inta badan dulmigaasi uu ka imanayay deegaanada Puntland gobolada kale dadka ka soo jeeda ee sistamyadii kala dambeeyay madaxda ka noqday waxaan marka halka kan aan maantay wax lala yaabo aan ku tilmaami karnaa oo mucjiso ah iyada oo intaas oo dulmiya uu ka jiro gobolka bari dadkuna weli ay ilaalinayaan midnimada ay ilaalinayaan tolnimada ay ilaalinayaan Soomaalinimada in haddana inta mas'uuliyiin magaci dawladda ku hadlaysa ay shir jaraa'id ay qabtaan ay ka hadlaan oo yiraahdaan barwaaqada ah haysataan iyo nimcada ah haysataan waa weynaysaan caruurtiina iyo dhalinyaradiina iskuulada aad walaynayna qofkii ka hadla dulmiga jirana waa xirxirayna kii aanu ku weerari karno deegaankiisana waa ku weerarayna waliba aflagaada aanan halka ku soo koobi karin mas'uuliyiin magaci dawladda ku hadlaysa inay arrimahaas public media ay ka sheegaan wax la aqbali karo ma aha wax loo dul qaadan karo ma aha waxaanu halka ka cadaynaynaa dadweynaha ku dhaqan gobolka bari qaybaha kala duwan ee bulshada dhammaantood inay ku midaysan yihiin hal qodob inay ku midaysan yihiin waxaan su'aashatan rabaa inay ka jawaabaan ummadda daawan doonta clipkan Soomaali oo dhan meel kasta ku noolaad wadanka gudihiisa ama dibaddiisa gobolka bari xaq ma u leeyahay dadweynaha ku dhaqan iyo bulshada ku dhaqan inay helaan xuquuqda ay helaan walaalahooda kale ee ku dhaqan gobolada kale sida Mudug iyo Nugaal iyo Karkaar xaq ma u leeyahay waxa kamid ah xuquuqda ay helaan qof aan gobolka u dhalan kama qabto xilalka dawladeed ee ka jira gobolka sidoo kale opportunity-ga shaqo ee hay'adaha private-ka ah kama qabto qof aan u dhalan deegaanka gobolka marka ay hawshu ka jirto mashaariicda wadanka ka jira ee gobolka ka jira ee horumarineed ma fuliso company ama shirkad aan deegaanka ama gobolka iyada ah ka soo jeedin gobolka bari wuxuu rabaa shacabkiisu ay doonayaan siyaasiyiintiisu doonayaan dhammaan qaybaha bulshada kala duwan ay doonayaan in wadanka oo dhan uu noqdo nidaam uniform ah ama ay noqoto in gobol kasta dadka ku dhaqan sida gobolada kale ee Nugaal iyo Mudug iyo Karkaar ka jirta xuquuqda ay leeyihiin la siiyo prioritiska iyagu ay helaan in gobolka bari laga ama in laga guuro oo wuxuu dhan inta la isku dhafo system dawladnimo loo guuro goboladii aan la kala xigsan oo ninka dhalinyarada wax soo bartay uu ka shaqayn karo gobolka Mudug uu ka shaqayn karo Nugaal uu ka shaqayn karo Karkaar sarkaalka tababarka qaba oo dibadda loo diray oo ku haboon inuu xilka qabto ciidamadana uu ka noqon karo taliyaha qaybta Mudug uu noqon karo kan Nugaal uu noqon karo Karkaar hadii la waayo way dhamaatay dulmi dambe oo la qaato way dhamaatay in lagu aamuso dulmi iyo qaab aad moodo in laga soo gudbay oo primitive ah way dhamaatay in lagu aamuso xisaabtan dhaba iman doona dadkuna way helayaan xuquuqdooda nin ogol iyo nin diidaba waxaan rabaa inaan halkan mar labaad iyo mar saddexaad aan uga hambaliyeeyo bulshooyinka gobolka bari ku dhaqan sida ugu quruxda badan oo nabadgelyada leh oo ay doonayaan in ay ku xisaabtamaan oo xuquuqdooda ay ku doontaan waxaan halkan sidoo kale aan ka cadaynayaa oo aan baaq uga dirayaa dhammaan bulshada ku dhaqan gobolka bari
hadday tahay kuwa gobolka ka soo jeeda iyo kuwa martida u ah ee walaalahood soo martiyayba waxaan ugu baaqayaa in la ilaaliyo midnimada in la ilaaliyo nabadgelyada in aysan kala damayntu lumin iyadoo xisaabtanka iyo xuquuq raadintu ay jiri doonto haddana in la ilaaliyo nabadgelyada in qofka shakhsiga ah ee gobolka martida ku ah in uu si nabadgelyo leh ugu noolaan karo ugu ganacsan karo hantidiisa privateka u yeelan karo inaan la isku khaldin xisaabtanka iyo khaladaad kale oo keeni kara isku dhac keeni kara oo keeni kara magacii iyo wanaagii iyo sharaftii ay lahaayeen bulshooyinka gobolka bari in meel looga dhaco systemka jirana waxaanu uga digeynaa in ay isku dayaan shacabkan inay handadaan in ay u hanjabaan inay u boolo xoofteeyaan in ay si khaldan isugu dayaan xuquuqdooda inay uga leexiyaan waa uga digeynaa mar labaad iyo mar saddexaad waa ay socon doontaa arrinta tan waxaanuna rajaynaynaa hadduu ilaahay idmo in ay garan doonaan systemka iyo maamulka Puntland hadeer ka jira dadka reer bariga inay xaq u leeyihiin xuquuqdooda inay ka hadlaan doontaan kuna guuleysan doonaan waa rajaynaynaa arrintaasi inay suura gasho mar labaad iyo mar saddexaad dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed iyo Puntland gaar ahaan shacab weynaha reer bariga ah ee gobolkan ka soo jeeda meel kasta ay ku nool yihiin waxaan leeyahay midnimo horumar sinaan cadaalad aad baa u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi.